السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وعن وناكسن دمانتي ملك سجوكتان كسودو فيديو جينا مانتا يكورس كينا لما بحي Mastering Presentation Skills أما حرفة هرمانتا سيدا وحلو سو جديد وكوسو دياري أنا قوة علي محمد سبان علي باشي فيديو كوري وحا كسو قادرني Introduction أما كورس كهرعيسة وآن كسو قادرني سؤالك لدوان سيدا كورس كان ماركت objectives كيسة أما ujeedka كلنا كورس كان waxaa ka soo hadalnay in maaragtay modulada ama chapterada oo koorskan ka koobnaan doono sidoo kale waxaa ka soo hadalnay waxyaabaha laga rabo si aad koorskan u qaadato iyo koorska waxyaabaha ay ka rabto in aad la timaado si aad u qaadato koorskan ugu dambeyn videogii hore waxaa soo qaadanay su'aal oo aan idin weydiiyay oo ahayd why ama sababta aad u rabto in aad presentation horumarsan ama muxaadaro horumarsan inaad soo jeediso sababta aad u rabto maxay tahay qaarkiin waa ka soo jawaabteen aad ayay u mahadsantihiin qaarna wali ma ka soo jawaabin waxaan rajaynayaa su'aalaha dambe video kasta waxaan isku day doonaa in aan su'aal idin soo weydiiyo commentiga hoose jawaabta inoogu reeba insha Allah su'aalaha kasta aan idin weydiiyo jawaabteeda waxaa ku soo qaadan doonaa videoga xiga hadda su'aashii hore oo aan idin weydiiyay oo ahayd why ama sababta aad u rabto in aad soo diyaariso presentationka maxay tahay videogan ayaa maanta ku soo qaadan doonaa ilaa dhamaadka haddii aad sii joogto insha Allah haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena YouTube-ka AliX Online fadlan soo dhow had iyo jeer kanaalkan waxaa ku soo qaadanaa barnaamijyo lagu baranayo teknolojiyadda barnaamijyo dhiirigelin iyo kuwa naga soo dalbataan marmarna waxaa soo dhignaa koorasyaal free sida midkaan oo kale Mastering Presentation Skills waa koors bilaasha wax laga raban ma laha marka waxaan ku leenahay soo dhow fadlan naga gaarsii asxaabta kale aykan ha ka faa'iidaystaan haddii aad leedahay barnaamijyada soo diyaarin waa muhiim free waxa u tahay in aad la wadaagto asxaabta waana ku mahadsantahay videogeena maanta insha Allah waxaan diiradda ku saari doonaa modulkii koowaad ee koorskeena oo ah effective presentation ama presentation horumarsan si loo helo ama loo gaaro presentation ama soo jeedin horumarsan waa in aad su'aalo dhowr ah ka jawaabnaa kow waa in aad fahamnaa waa maxay presentation skill xirfadda soo jeedinta waa maxay waa in aad qeexi karnaa labo waa in aad ogaanaa waxyaabaha muhiimka noo ah ka hor intaan presentation ama maaragtay waqti iyo maal aan gelin waxyaa jirto waxyaabo muhiim noo ah in aan ogaano saddex waxaan insha Allah soo qaadan doonaa saddexda tiir ee aasaaska u ah presentation kasta oo caalami ah afar waxaan soo qaadan doonaa objectives ama goals waa maxay ujeedka aad ka leedahay ama hadafka presentationka aad soo diyaarinaysid su'aashan u dambeysa videogii hore qaybtiisa dambe ayaan idinku weydiiyey oo ahayd waa maxay hadafka aad ka leedahay why aad soo diyaarinaysaa presentation horumarsan insha Allah video ila dhamaadkiisa hadii aad sii daawato waxaa ka jawaabi doonaa su'aalahaas iyo waxyaabo kale oo dheeraadna soo qaadan doonaa insha Allah tusaalooyin su'aasha koowaad oo aan videogan maanta ku soo qaadanayno waxay tahay what's presentation skill waa maxay xirfadda wax soo jeedinta haddii aan isku dayo in aad si sahlan oo soo koobo maaragtay qeexitaan kooban ka bixiyo presentation skill waxaa lagu sharxi karaa waa soo gudbinta macluumaad fariin talooyin oo aan markaas u soo gudbiso shakhsi ama koox meel wada jooga oo aan markaas u soo gudbiso si la fahmi kara oo ay dadka hadhow ay iloobi karin isla markaasna waxa aad soo gudbinayso waa in ay weheliyaan sawiro qurux badan oo soo jiidasho leh qoraallo la aqrin karo isla markaasna shakhsiga soo jeedinaya waa inuu yahay qof yaqaan aqoon u leh wuxuu markaas ka hadlaya xamaasad buuxdana markaas u hayo waxaan rajaynayaa inaan ka bixiyo qeexitaan kooban haddii aad hayso ama sharaxaad kale oo dheeri fadlan waxaan jeclaan lahaa commentiga hoose in aad nagula wadaagto presentation skill waxa u taqaan aniga sidaas ayaa u qeexay wax kale hadday hayso fadlan commentiga hoose nagala wadaag okay markaan waxaan u gudbi doonaa qaybta labaad ee videogeena maanta ka hor intaadan waqti iyo maal aadan gelin in aad soo diyaariso presentation horumarsan waa muhiim in aad isweydiisaa su'aalahan soo socda kow ma jiraan si ka fiican oo u soo jeedin karto fariintan labo suuragal ma tahay in aan isticmaalno email qoraal ama samayno kulan gaaban ama aaba ku dhameysano telefoon in aan dirno fariinta awoodna saddex imise qarash lacag iyo waqti ayaa lagaaga baahan yahay si aad presentationka usoo diyaariso mana u qalmaa in aad geliso ama ku isticmaasho lacagtaas iyo waqtigaas oo dhan afar waxa aad soo jeedinayso maxay ku saabsan yihiin dadka u soo jeedinaysana maxay ka rabaan waxa u soo jeedinaysa maxaa ficil ahaan ay sameyn doonaan maxay dareemi doonaan markay maqlaan presentationkaada su'aalahaas oo dhan haddii ay maaragtay jawaabta kuu soo baxda ay noqoto haa kadib waxaa ku dhaqaaqi kartaa inaad soo diyaariso presentation
imise hadda adiga daawanaya ama dhegeysanaya videogan imise presentation ama muxaadara ayaa ka qayb gashay oo aad dareemtay markay dhamaatay kadib in uu maaragtay waqti ka dhume sababtoo ah presentationkaas ama muxaadaradaas aad dareemtay in ahayd boring qodobadan dhowrka ah afartan mee soo marin okay haddii markasta oo presentation soo diyaarinayso oo su-aalahan afarta isweydiiso waxaa ka badbaadaysaa in uu noqdo presentationkaada mid boring ama mid si kale ku dhameysan karto haddii uu mid telefoon ku dhameysan karta yahay telefoonka ayaa markaas u isticmaalaysaa mid oo qoraal ku dhameyn karta doo yahay ama kulan gaaban waa isticmaalaysaa laakiin haddii uu waxaanu dhan soo koobaan oo jawaabaha dhan helaysa haddii ay yes noqdaan kadib waxaa u gudbi kartaa in aad soo diyaariso presentation okay qayb saddexaad ee videogan maanta waxaa kusoo qaadan doonaa tiirarka presentationka ama soo jeedinta presentation kasta wuxuu leeyahay 3 tiir oo laga maarmaan ah 1 dadka wax loo soo jeedinayo waa 1 waa inay joogaan 2 soo jeediyaha qof soo jeedina waa inuu jiraa 3 presentation lafsadiisa ama slide-yada ama qoraalada ama waxa dadka tusaysid oo soo hordhigaysid waa inay jiraan 3dan qodob waa tiirarka presentation kasta mid kasta waxaa isku day doonaa in aan fahmno oo aan ku sameyno analysis ama baaritaan 3dan qodob mid kasta waxaa ka soo qaadan doonaa su'aalo dhowr ah oo aan isweydiin karno oo haddii aan ka jawaabno markaas waxaa heleynaa sawirka guud mid kasta okay qodobka koowaad oo aad iyo aad muhiim u ah waa dadka wax loo soo jeedinayo waa inaan isweydiinaa su'aalahan markastoo aan rabno in aan baaritaan ama analysis ku sameyno dadka aan wax soo jeedinayno 1 maxay meesha u joogaan dadkan presentationka maxay ka rabaan maxayse u rabaan qaabkay wax u dhageystaan sidee wax u maqlaan maxay xusuusan doonaan soo jeedinta kadib luuqadee ku hadlaan maxay ka ogyihiin macluumaadka ama barnaamijka soo jeedin rabo sidee warbixin dheeraad uga heli karaa dadkan sidee u aruurin karaa falcelinta ama warbixinada soo jeediyey falcelinta ka bixiyeen sidee u aruurin karaa su'aalahan oo dhan iyo kuwa kale waxay ka caawin doonaan inaad ogaato dadka aad wax soo bandhigayso si aad maaragtay ugu talagasho presentation munaasib ku ah markaas tiirka labaad ee laga maarmaanka waa adiga soo jeediyaha markastoo aad soo diyaarinayso presentation horumarsan waa inaad isweydiisaa oo baaritaan nafsadaada ku sameysaa sida aad baaritaan ugu sameysay dadka kasoo qaybgalayaasha waxaad isweydiin kartaa su'aalo dhowr ah oo soo socdo sida waa maxay sababta aan meeshan u joogo hadafkayga muxuu yahay sidee u eg tahay sidee codkaaga yahay sidee u xusuusan karaa waxyaabahan ka hadli doono sidee u xakameyn karaa cabsida iyo qalqalka dadka hortooda sidee ugu jawaabi karaa su'aalaha ay soo weydiin doonaan dadkan sidee kartideeda ugu muujin karaa dadkan sidee ku ahay isticmaalka teknolojiyadda marka aad stage-ka saaranahay sideena isku soo bandhigi doonaa marka dadka hortooda taaganahay su'aalahan oo dhan insha Allah waxaa ku dadaal doonaa in videogan ilaa ama course-kan ilaa dhamaadkiisa haddii aad sii gaarto waxaan dhan inaad jawaab u hesho oo aad maaragtay sidaa maanta tahay ka wanaagsanaato qodobka saddexaad oo ah kii ugu dambeeyey 3 tiir ee asaaska ah si loo helo presentation horumarsan ayaa ah presentationka waana muhiim in aad isweydiinaa su'aalo dhowr ah oo aan analysis ku sameynaa sidii labadii qodob oo ka horreeyo kale su'aalaha isweydiin karno waxaa ka mid ah waa maxay hadafka aan ka leenahay presentationka muxuuse ku saabsan yahay presentationkan maxaa xuduudihiisa oo lagu soo qaadan doonaa maxaase lagu soo qaadan doonin maxaa u baahan in lasoo daabaco teknolojiyad noocee ayaa la isticmaali doonaa ilaa intee saac ayuu qaadan doonaa si loo soo diyaariyo iyo si loo soo jeediba sidee fariinta u noqon kartaa mid lama iloobaan ah qaybtay adag in la fahmo sidee qoraal ama script ugu diyaarin karaa presentationkan ugu dambeyn goobta lagu bandhigi doono sidee u egtahay mid kasta oo ka mid ah 3 qodob ah kasoo hadalnay ayaa lagama maarmaan u ah in presentationku uu noqdo mid horumarsan caalami ah oo miro dhal ah tusaale yaro sahlan haddii aad kuu soo qaato waa 3 qodob waxay u dhigmaan kursiga 3 lug leh markastoo kursiga 3diisa lug la helo ay dhammaystiran yihiin kursigu wuxuu noqonayaa mid stable oo degan oo lagu fariisan karo laakiin mid ka mid ah 3 lug haddii la waayo ama la gaabiyo kursigu waxay u baahan tahay in balancegiisa uu dhumo aba lagu fariisan karin ama uu kula dhaco markaas sidaas si lamid ah si kastoo presentationka u fiican yahay oo maaragtay
dadka kasoo qaybgal aad u badan yihiin laakiin qofka soo jeedinaya haddii laga waayo maaragta haddii uu aqoonin xirfadda sida wax loo soo jeediyo marka waxay noqonaysaa presentationka waa lagu khasaaray isla sidoo kale presentationka haddii si fiican loo soo diyaariyo qofka soo jeedinayna haddii uu cilmi iyo aqoon iyo xamaasad u hayo laakiin dad lala wadaag haddii la waayo sidoo kale waxaa dhihi karnaa presentationka waa mid lagu khasaaray sidaasi si lamid ah haddii midkood la waayo saddexdooda presentationka markaas wuxuu noqonayaa mid maaragtay lagu khasaaro insha Allah ilaa dhamaadka kooraska haddii aad sii joogto waxaa rajeynayaa inaad si fiican u sharaxi doono qodobadan mid walba waxaan kuu rajeynayaa inaad noqon doonin mar dambe sidii hore markan waxaa soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay videogeena oo aan kusoo qaadanayno su-aashii aan idin weydiiyey videoga hore oo ku saabsanayd objectives and goals waa aa usoo diyaarinaysaa presentation horumarsan maxaa ka damacsan tahay markastoo presentation sameynayso waa in aad leedahay ujeedo oo aad usoo gudbinayso fariinta aad wado haddii aad leed in aad dadka wax cusub baraysid ama aad shay cusub ka gadaysid daawadaha markasta waa in aad la nimaanaa hadafyada way kala duwanaan karaan videogii hore waxaa idin weydiiyey sababta aad u rabto in aad presentation horumarsan usoo jeediso qaarkiin waa kasoo jawaabteen waana ku mahadsantihiin hadafka presentationka loo soo jeedinayo waxaa loo kala qaadi karaa 6 qaybood qayb kastana waxaa loo soo diyaariyaa si gooni u ah 6 hadaf ee presentationka waxay kala yihiin 1 to inform ama in aad wargeliso ama wacyigeliso tusaale ahaan in aad warbixin ka samayso mashruuc socday meesha uu marayo waxa qabsoomay iyo waxyaabaha dhiman oo maaragtay in uu qabsoomo la rajeynayo 2 tusaale kale waxaa usoo qaadan karnaa in aad warbixin ka bixiso research ama baaritaan aad samaysay waxyaabihii ku soo baxay natiijada heshay waa mid ka mid ah presentationada loo yaqaan informational ama presentationada wargelinta waxaa lagu yaqaanaa presentationada noocan in ay yihiin kuwo gaagaaban oo diiradda saara markaas ujeedada laakiin haddii informationka presentationka uu dheeraado waxaa loo cabsada ama laga baqaya markaas in dadka loo soo jeedina in ay iloobaan wax lala wadaago markaas okay presentationada noocan waa kuwo diiradda saara dhacdooyinka xaqiiqda ama facts way hadafka labaad oo presentation horumarsan usoo jeedin karno ayaa noqon kara in uu yahay to educate ama in aad dadka wax barno tusaale ahaan in la baro daawadaha ama dhageystaha macluumaad cusub ama in la fahamsiiyo shay cusub sida u shaqeeyo ama sida loo isticmaalo calaamadaha presentationada noocan waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin kuwo dhaadheer oo aad u qoto dheer oo sharaxaad badan bixinaya sida hadda koorskan mastering presentation skills wuxuu ku saleysan yahay isla presentationka noocan waa to educate ama in uu daawadaha ama dhageystaha wax baro inta badan presentationada noocan waxay u dhigmaan ama ka howl badan yihiin in qofka uu markaas qoro buug dhammaystiran ujeedka laga leeyahay presentationada noocan ayaa ah in daawadaha ama dhageystaha uu xusuusto macluumaadkii markaas lala wadaagay ee noqdaan macluumaad lama iloobaana hadafka saddexaad ee soo jeedinta presentation horumarsan ayaa ah to persuade in aad qanciso ama aad ka dhaadhiciso okay ujeedka presentationada noocan ayaa ah in soo jeediyaha uu qanciyo ama uu ka dhaadhiciyo fikir cusub daawadaha ama dhageystaha isla markaasna uu damacsan yahay in uu kasbado kalsoonida uu ku qabo daawadaha sidaasna ay ku qaataan ra'yiga ama fikirkiisa cusub presentationada noocan waxay ku badan yihiin ama lagu yaqaanaa siyaasiyiinta iyo ganacsatada inta badan soo jeediyaha haddii uu ahaan lahaa ganacsade ama siyaasi ama wuxuu raba ha noqdee waxay marka hore soo bandhigaan dhibaato jirta markaas kadibna waxay la yimaadaan xal uu markaas u arko in looga gudbi karo dhibaatada markaas taagan asiga uu ku saleynayo markaas fikirkiisa qodobka afraad waa to activate ama in ay falcelin sameeyaan inta badan presentationka noocan oo kale waxaa lasoo qaataa markaa daawadayaasha ama audiencega ka rabta in ay ficil sameeyaan presentationka noocan wuxuu ku dhow yahay sida kii hore oo persuasive presentation inta badan soo jeediyaha wuxuu soo bandhigaa macluumaad ama warbixino uu ka rabo markaas daawadaha in ay falcelin sameeyaan tusaale fudud haddii aan ku siiyo waa sida barnaamijyada sadaqa ururinta ama siyaasi raba in loo codeeyo ama tababar kooxeed raba in kooxdiisa ay raacdo naqshada uu u dejiyey markaas si presentationada noocan ay u noqdaan kuwa miro dhal ah waa muhiim in soo jeediyaha uu ka dalbadaa daawadaha ama dhageystaha ficilka ay sameyn lahay markaas hadda adiga videoan daawana ilaa intaan haddii aad soo gaartay waa maasan tahay fadlan nagu taageer inaad like saarto
subscribe-na ku noqoto si fiidiyoyaasha ugu dambeeya ay kuu soo gaaraan. hana iloobin in asxaabta la wadaagto si ay kan ugu faa'iidaystaan. waa mahadsantahay. markaan waxaa u gudbaynaa qodobka afraad oo ah to inspire and motivate in aad dhiirgeliso. dabcan cid kasta oo barnaamij soo jeedinayso waxay rabtaa in ay tusaale fiican u noqoto dadka ay wax soo jeedinayso, inay dhiirgeliso si dadka fikradaha ama inay fikiraan ama noloshooda wax ugu bedelaan. presentationada noocan waxaa tusaale fiican u ah sida kuwa laga soo jeediya TED Talks. inta badan waxay diiradda saaraan sida shaqsiga uu horumarin lahaa noloshiisa iyo nolol maalmeedkiisa. tusaale kale ayaa ah sida maamulo shirkad oo markaas shaqaalihiisa usoo bandhigay presentation uu markaas ku dhiirigelinayo si shaqaalaha ay markaas ugu dhiiradaan ama u dardargeliyaan wax soo saarka ama horumarka shirkadda. nooca ugu dambeeya oo presentation usoo diyaarin karno ayaa ah to entertain ama in aan madadaalino. dabcan shaqsi walba wuxuu rabaa in la madadaaliyo, laga qosol siiyo. si loo madadaaliyo waa in lala yimaada presentation horumarsan oo wata waxyaabaha dadka lagu madadaaliyo. si presentationka noocan oo uu noqdo mid miro dhal ah, soo jeediyaha waxaa laga rabaa in uu la yimaado hal abuur xirfadeysan ama sheekooyin, sawiro, fiidiyoyaal iyo qoraallo loo soo naqshaday markaas si majaajilo ama si qosol badan. presentationka noocan waxaa lagu yaqaanaa inta badan kaftanka. waxaan lasoo qaataa sheekooyin dhacay waqti hore iyo waxyaabaha laga baran karo. waxaan loo soo jeediyaa si fanne markaas. okay, markaan waxaa soo qaadanay dhammaan hadafyada kala duwan oo shaqsiga yeelan karo ka hor inta uusan ku fogaan diyaarinta presentationka. sidaan videogan maanta kusoo qaadanay, haddii aan soo koobo, waxaa muhiim ah in aad kala garataa in presentationka uu u qalmo in lasoo diyaariyo marka hore. kadib waxaa baaritaan ku samayn karnaa 3 tiir oo aan soo sheegnay oo kala ahaa audience, dadka oo loo soo jeedinaya markaas waa inaad baaritaan ku samayn kartaa oo analysis. sidoo kale presenter, qofka soo jeedinaya oo adiga waa inaad adigna su-aal isweydiisaa oo ogaataa hadafkaaga wuxuu yahay. ugu dambeyn waa in la helaa presentation ama slides ama qoraallo ama sawiro qurux badan oo soo jiidasho leh waa in la helaa. waa inaad idin ogaataa sida u soo diyaarinaysid su-aalo waa inaad isweydiisaa hadafka presentationka muxuu yahay. okay, kadib waxaa kala ogaanaynaa waxyaabaha daawadaha ay naga rabaan iyo ujeedka presentationka. kadib waxaa usii dhaqaaqi karnaa in aan research sameyno. waxaana kusoo qaadan doonaa insha allah videogana xiga oo ah modulekii koowaad effective presentation. okay, haddii aad ilaa heerkan soo gaartay waxaa ku weydiin lahaa su-aal kooban. markaan research sameynayno ama baaritaan sideen u sameyn karnaa? fadlan isku day inaad commentiga nagula wadaagto. waana ku mahadsan tahay haddii aad ilaa dhammaadka videogan soo gaartay. fadlan ii sameey 3 codsi. 1, ha iloobin in aad videogan like saarto. 2, subscribe ku noqo si videoyaasha ugu dambeeya ay kuu soo gaaraan. 3, asxaabta ii gaarsii. waana ku mahadsan tahay. waxaana inoo balan insha allahu video kale.